بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد الصوماليات ميل كستو أد جوجتان با كسو دوادا برنامج آد إياد وقيمة بدن برنامج كاس أو كسابسن هالباقيادة لغو دورانيو هقاميها أو إسلامكو أو آمسيحي يعني قف كستا هقامينيا أمد دولة شركات جناعسي وحبرشو arrimo bulsho iyo xataa qoys wuxuu u baahan yahay oo waxa jira halbeegyo lagu doorto oo lagu kala aqoonsado qofka hogaamiyaha fiican ah iyo qofka hogaamiyaha fiican aan ahayn ogeysiis hoyga xirfadaha iyo hogaamiyaasha mustaqbalka hagaaga kadib waxay qabanaysaa koras cusub oo leadership and management mataydaneeye soo booq xafiiska hagaaga kadib oo ku yaala laamiyaraha soobe nabarka dambe ee jaamacadda simad ama la soo xiriir nambarada shaashada saaran hagaaga kadib hagaajiyaha hogaamiyaha mustaqbalka markay leeyahay hogaamiye waa يعني شيء ugu muhiimsan oo dhaqaajiya ama lagu dhaqaajin karo ummadaha lagu dhaqaajiyo dawladaha lagu dhaqaajiyo shirkadaha ganacsiga lagu dhaqaajiyo sidaas darteeda qiimo badan ayuu runtii aad iyo aad ugu fadhiyaa waxa la yiraahdaa hay'ad hogaamin kama harto bimacna hay'ad kasto ee la dhaqaajinayo waxay u baahan tahay hogaamiye fiican oo runtii dhaqaajiya ay u fiican tahay annaga hadii aynu nahay Soomaali waxaynu ognahay dalkayna iyo dadkayna Soomaaliyeed inaan dunida wax badan aan ka harnay sababaha dunida aan uga harnay waxa koowaad oo lagu tilmaamin karo waa hogaamiyaha oo macnaheedu ma waxa waaye Soomaalidu inaysan hogaamin fiican lahayn maya laakiin macnaheedu waxay tahay qof kasto positionkii oo munay lama dhigayo oo position kale ayaa runtii aad iyo aad loo dhigaya waxaan rabnaa barnaamijkan aynu u bixinay halbeega lagu dooranayo hogaamiyaha inaynu ku tilmaano oo aynu ku qayaxno waa maxay 10 sifo ama 10 tilmaamood ee ugu fiican ee laga fiiriyo qofka loo xulayo ama loo dhiibayo xil iyo position loo dhiibayo ama ha noqdo mid siyaasadeed ama ha noqdo mid waxbarasho ama ha noqdo mid ganacsi ama ha noqdo mid arrimo bulsho iyo qoys ha noqdee ilaa ereyga hogaaminta markaynu leenahay loolama jeedo kaliya dawlad loolama jeedo siyaasad loolama jeedo madaxweyne loolama jeedo ra'iisul wasaare loolama jeedo wasiir waxa loola jeedaa qof kasta ee dad hogaaminaya hooyadu waa hogaamiye qoyskeeda ayuu hogaamiye ka tahay aabuhu waa hogaamiye kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun can ra'iyatihi mafhuumkaas iyo fahamkaas guud ayaynu ka rabnaa ereyga hogaamiye markaan leenahay sidaas darteeda ayaa hogaamiyuhu qiimo badan runtii ku fadhiyaa bulshada Soomaaliyeed waa inay fahmaan yaani marka ay wax kala xulanayaan markay dad kala dooranayaan war qofka maxaa lagu dooranayaa maxaa ku xulanayaa maxaa rabaa qofkaana inaan soo dhaweeyo qofkaana aan ku fogeeyo iyadoo laga fiirinayo hogaami sifooyinka ama tilmaamaha hogaamiyeed uu leeyahay oo islaamka uu qabo sidaas darteeda ayaa waxaan rabaa inaan halkan idigu soo gudbiyo 10 sifo ama tilmaamood oo laga fiirinayo hogaamiyaha wanaagsan runtii laga fiirinayo ma aragtaa aad iyo aad ay runtii u tahay 10kaas hogaaminood xagee laga fiirinayaa hogaaminta waxaa jira book la yiraahdo The Leadership Challenge oo kamida buugaga ugu fiican dunida buugaas qorayaasha qoray labada qore oo qorta waxay sameeyeen cilmi baaristaas oo ku salaysan waa maxay sifooyinka ugu fiican ee qofka hogaamiyaha laga fiirinayo waxa teejkaas iyo cilmi baaristaas laga sameeyay dunida oo dhan 6 qaaradood ee dunida ayaa laga sameeyay waxa waraysi laga qaaday in ka badan 1 milyan iyo bar qof oo la weydiinayo su'aasha ah hadii aad hogaamiye dooranayso maxaa ku dooranaysaa ayaa la weydiinaya dadkaas oo dhan 1 milyan iyo bar waxay isku waafaqeen tilmaanta koobaad sifada koobaad ee qof hogaamiye ah lagu doorto marka qofkaas loo magacaabayo xil position ama meel inuu hogaamiyo nooc kasta ay tahaba in ay tahay in hogaamiyahaas uu yahay qof la aamini karo oo lagu kalsoonaan karo kalsoonida iyo aaminaadda ayaa waxay noqotay sifada koobaad tilmaanta koobaad ee hogaamiye kasta lagu cabirayo waxaan rabaa qof markaad wax u dooranayso ama aad samaynayso inaad ka fiiriso sifadaas iyo tilmaantaas dunida cilmi baaris badan runtii looga sameeyay oo macnaheedu ay tahay qofkan inuu yahay qof lagu kalsoon yahay hadalkiisa bimacna waxaa loola jeedaa lagu kalsoonaan karo la aamini karo in waxa uu sheegayo
iyo waxa uu samaynayo inay isku mid yihiin qof kasta oo waxa uu sheegayo ama iyo waxa uu samaynayo ay isku mid yihiin waa qof la aamini karo qofka aysan isku mid ahayn ma ahan qof la aamini karo sidaas darteeda in qofka la aamini karo la isku halayn karo lagu kalsoonaan karo aadan ka baqin inuu khiyaano aadan ka baqin inuu farasweynaha kaaga boodo aadan ka baqin inuu dhibaato kugu sameeyo markaas ayaa waxa abuurmaya xiriir fiican ee u dhaxeeya qofka hogaamiyaha ah iyo dadka uu hogaaminayo nooc kasta ay yihiin markaas ayaa waxa dhacaya arintaas marka in lagu kalsoonaado waa sifada tilmaanta koobaad oo 10 ka tilmaamood oo barnaamijkan insha Allah taala aan idigu soo gudbin doono sifadiisa koobaad waa in la aamini karo iyo laguna kalsoonaan karo qofka hogaamiyaha ah ee runtii xil loo dhiibayo that's why rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ahay ama lagu tilmaamay saadiqul masduuq saadiq furlow ah al masduuq ee la rumaysto sidaas darteeda ayaa kalsooni badan ka dhaxdhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii raacsanay oo asxaabtiisa ahay ilaa risaaladiisii iyo fariintiisii dunida oo dhan ay ku baahdo oo maanta ay marayso 2 bilyan wax ka badan oo qof ah inay rumaysanayaan idan kalsoonida noocaasa aad iyo aad ay runtii muhiim u tahay marka laga hadlayo qofka hogaamiyaha ah maxaa lagu dooranayaa qofkan waa inuu yahay qof bulshada ay ku kalsoonaan karto waxa uu dhahayo iyo waxa uu sameynayana ay runtii wax isku mid ah yihiin markaas ayaa waxa dhalanaya teamka ama kooxda qofka la shaqeynaya ayaa energy iyo tamar iyo awood iyo dhaqaaq ay yeelanayaan guulihii la rabana markaas ayaa runtii la gaaraya isbedel weyn ayaa markaas la sameyn karaa waxa ku soo khatimaya ama ku soo gabagabeynaya qisadii dhaxmartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabada dagaalkii badar waxaynu ognahay dagaalkii badar asxaabta iyo rasuulku ma aysan u soo bixin inay dagaalamaan uma soo bixin laakiin waxay u soo baxeen in qaafiladii iyo safarkii Abu Sufyaan uu hogaaminaya in ay soo celiyaan ay soo kaxayaan Madiina keenaan ay la soo wareegaan ayaa ujeedadu ahayd markay badar aadeen Abu Sufyaan wuu maqlay wuxuuna ka baxay wadooyin aan ahayn wadooyinkii laga filayay wuuna ka fakaday saxaabada calayhi salaatu yaani rasuulka sallallahu alayhi wasallam quraysh ayaa maqashay quraysh marka waxay soo kaxaysatay jeysh ama ciidan aad u balaaran waxayna soo degeen badar ayay soo degeen meeshaas markay taladu marayso oo safarkiina fakaday ciidankii qurayshna uu yimid badarna asxaabtii ay degan yihiin yaani qurayshna ay soo degtay tala cusub markaas ayaa dhalatay sababtoo ah wixii lagu filayay ama lagu talagalay wax ahayn ayaa soo baxay markaas ayaa rasuulku isugu yeeray calayhi salaatu wasalaam dhammaan asxaabadii la socotay isugu yeeray markaasuu dhahay ashiiru calaya wardadihu waad u jeedaan xaaladdu meesha ay marayso wixii aan u soo kacnay oo ahay safarkii Abu Sufyaan meeshii ayuu ka baxay ciidan ayaa quraysh soo dirtay oo maxaynu sameeynaa asoo tala weydiinaya saxaabadii la socotay calayhi salaatu wasalaam markaas waxa hadlay Abu Bakr Siddiq si fiican ayuu u hadlay wuxuu dhahay yaa rasuulallaahi war nala kac ماشي أدنى أدو أيام كل أدينا وين قراعينا عمر أياه الله يصير ضحي مقداد بن عمر أياه الله يصير أيوه ضحي مركز مقداد وحادي أدو عليه يا رسول الله نلا دقاق أو يعني نلا تك وين كل صعونينا وين كل هالجمينا وين كل دجالمينا مرناها ينسينا رب إسرائيل أي النبي موسى كل هم اذهب أنت وربك فقاتلا أديك يا رب جاب دجالما وحنا كلنا هاي أديك يا رب جا وين كل دجالمينا نلا دقاق يعني ماشي هي تنتي لرجال وين أيوك هلا يصدق هذا روح كهذا الشيء أو ماشي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني طلب أكوي دينا يا صحابي أن يوجه هذا الشيء لكن سد حدث قفوض وحيا هاي سد حدث قفوض كسو جدي مهاجرين كسو جدا مركز رسولك كل عليه مركله عشيروا عليا وردد يوجيت الماما وروح إيش هيجا مركز أيه وحافهمي لمن كي أنصاره هاي أو جيش كي رسولك وقبضنا عيدك رسولك إيه وقبضنا عيان أيه أرنتي فهمين نكي هو هاي مركز على كودا وده جامية هو هاي سعد بن معاذ أيه وحونا هاي فكأنما تشير علينا يا رسول الله أنا جميع نولجدا رسولك حونا نعم إذا أيه نولجدا مركز أيه سعد بن معاذ سي قروح بدن عجيبة أيوها الله مركز صونا هاي رسول الله وين رميني كتابك ألتي من الرميني وحكستو كان تنوى وحيني وينك دفاعنا إن لدقاء حتى بدا هدا دبالته وكل دبالنا هل قف أنصارنا كهل مايو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك آدي أفرحي آدي أفرحي وحنا كفرحي يعني صحابة يجلس نمدو أيو رمتي آدي أيو أفرحي ماشاس أيو دقاق إلهي وحو يبلغ قاضي الله بمتكاد إنه يصير دور إن شاء الله تعالى ماشاس مركب maxaa ka soo qaadanayna qisadaas ujeedadeedu waxay tahay yaani la aamini kara lagu kalsoonaan karo saxaabadu xaaladaas isbedeshay
go'aankoodii waxay u bedeleen kalsooni ay ku kalsoonaayeen qaa'idkoodii iyo hogaamiyaha oo ku kalsoonay atbaacdooda arrintaas waxaa dhacay markii dagaalkii Badar ee dunida iyo taariikhda bedelay gabi ahaan ayaa meesha ka soo baxa sidaas darteeda waxaan ku dardaarmayaa oo dadka Soomaaliyeed raba kula dardaarmayaa in marka aad qof dooranayso qof fulanayso qof meel u sharaxayso in uu yahay qofkaas qof runlow ah oo lagu kalsoonaan karo markaas ayuu meesha la geeyo macna ka samayn doona laakiin qof been looba ee khaa'in ah ee wax khiyaanaya ee been sheegaya oo wax uu sheegayo iyo wax uu sameeynaya ay kala duwan yihiin hogaamiye ma noqon karo sidaas darteeda sifadaas ah runnimada iyo lagu kalsoonaan karo ayaa lagu xulanayaa insha Allah ta'ala xalqada labaadna waxaan ku qaadan doonaa mawduuca iyo sifada labaad ee ugu muhiimsan ee laga fiirinayo hogaamiyaha xalqada labaad ayaan ku xulan doonaa insha Allah ta'ala xalqadeena koobaad halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa aad iyo mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh